كهذا الشيء ولا هذا كور وتنام جهادكم إلهي سبحانه وتعالى قرآن سوى عديه كتابك الله سبحانه وتعالى وكل شيء النبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي إنه ولي الجهاد كان صعنيه إن واحد جهاد يا ولي صعنيه لكن معنيه جهاد كمان لا أقون أنا مركب ما أنت وير سوق قابني سؤال وحليل أبو بدين مات طيب أنا وير سوق قابنا إن شاء الله تعالى وير ما أنت إن قاضي هذا حافظ كتار الله حمر أما كتار الله ما قال كعي كتار الله ومسلمين دقيقة ما جهاد قاضي أنا ميرك كتار الله ما أعرف ومضى مسلمين كفر سال لو بيان كان سجح واقع عبد الغني أدبر بانسنت هاي خدك تلفون كقادم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نواف سلام يا شيخ عبد الغني القلاوي waxaan rabaa sheekh cabdulqani raxlawi horta laba su'aalood baan weydiinayaa mid waxa weeye ku aragnaa kolley xaaladda hadda waddanka ku sugan yahay iyo meesha ay hawshu ay ka dhacayso wadaaddaa u kacay dad culamada u kacay oo arrinkaas inay gacanta ku qabtaan isku dayey waana muuqatay siday wax u dhaceen laakiin waxaan ka sugaynaa haddii shacabka soomaaliyeed aanu nahay culamadaas soomaaliyeed oo u kacay maadaama ay arkeen in wixii ay qaamiyeen laga dhiga adeegay oo ay hadday tahay shabaab iyo hadday tahay xisbul islaam iyo hadday tahay dowladda islaam maxaa dowladda federaalka oo sheekh shariif uu hogaaminayo adigoo soo koobaya walaalkiis waqtiga line waa badan yahay waayahay jazaaka allah khayra marka waxaan rabaa inaan weydiiyo keliya inay caddeeyaan ay wadaadadu yidhaahdaan qoladaasaa amarkii jebisay oo diiday oo khaladkii ay dadkaas dusha uga saaraaneen waayo ma suurtoobayso kanina gar leh siday kaga tagay saas u eegtahay kanina gar leh labaad oo sheekh cabdilani aan raba isaga inaan weydiiyo maadaama uu sheikh ayaga yahay oo aan maasha allah si fiican ugu kalsoonahay shabaab iyo xisbul islaam markii la isku daro ay kasoo horjeedaan dowladda inuu noo caddeeyo wixii ilaahay uu ka garansiiyo yaa khaldan iyaga iyo dowladda oo isdhihi karaa macnaha waa khaldan yihiin intaa kaliya weeye waana soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay jazaaka allah khayr baaraka allah fiik walaal horta guud ahaan culumadii islaamka ama dadka muslimiinta ama soomaalida ahayd waxay isugu yimaadeen fadhi bay isugu yimaadeen arrintaas kaga hadleen qodobay soo dejiyeen anugu waxaan oran karaa culimadu waxay uga aamuseen uga tageen mar u dambeysay xamar uga tageen waxay ahayd qodobadii ay soo dejiyeen oo ay soo qoreen in labada dhinac ay baabi'iyeen ومع ذلك هبا علماء meesha ka baxday inay qolo gaar ay siiyaan inay mataqaana gar leeyihiin qolo gaarna ay yiraahdaan gar ma leeyihiin maadaama labaduba qodobadii culimada ay soo talagaleen soo qoreen meesha ka baxeen anu marka waxaan ka oran lahaa xaaladda lagu sugan yahay cid gar ma leh xaaladda lagu sugan yahay labada dhinacba gaf baa ka jira waxa ku cadeynaya gaf ka jira waxa maanta magaalada xamar ama muqdisho ka dhacaysa dhiig in la daadiyo intaas qof dhintaan hal maalin dhintaan intaas qof guriga ku baaba'aan xabad ay socoto meel ay ku qoran tahay ma jirto marka anu waxaan oran lahaa walaalow saa tilmaantay weeyaan labada dhinac oo hadda xamar ku dirirayaan mid gar leh ma jiro labadana waa gafsan yihiin labadana waa gaf bay ku taagan yihiin ummadda islaamka waxaa la doonaya inay meel isugu nimaano oo ayna garteena aqoonsano oo aynu aqoonsano waxa danta iyo maslaxad noogu jirto waa gartay cabdilqani aad baad umahadsan tahay khadka telefoonkan qaadan halo asalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سودة ودودة والد السلام السلام غالية وحان لله الجمعة ونأكسن وانقرت والله وحدثي اسكو درايو او مارتي او مشاكل كشقايو مركو او هريسو او ولادده waayo maskaxdooda ma fadhiso dadka la leeyahay shabaabtana waa kursidoon ee ma ahan dad islaamnimo iyo maaragtay horumarka Soomaali rabo marka waxaan leeyahay oo u sheegaya dadkana hala gaarsiiyo aan leeyahay inay ka nacam hadda wadankeena waa burburay wadanka Ameerika oo hadda aan joogno oo na soo dhaweeyeen in aanan mashaakil ku furin oo maaragtay ciyaalka aan fidnayn iyo da'da maskaxda yar soo korayso qalqalka iyo cabsida iyo burbulanka aan ka joojino soo dhaweeyeen loo sharfay waa in annagana dadka ula noolaano oo loo sharafno marka waxaan leeyahay wadaadada waa inaad fidisiin wax wanaagsan ilmaha yaryar soo korayaan maskaxdooda aad ka daysiin burbulanka بارك الله فيك جزاك الله خير gabadha waxa moodaa xoogaa inay canaanatay anu waxaan oran lahaa canaantaada hadii ay tahay mid nagu wajahan insha Allah taala waa qaadanayna laakiin badanaaba sida culimada hore uga hadleen dad maskaxda laga qaado ama maarta maskaxda wax lagu guraa ma jiraan dadka waxa masaajida loogu sheegaa waxyaalaha khayrka ah dadka waxa loo sheegaa wixii xumaanta oo dhan baa laga reebaa wanaaga loo sheegaa marka waxaan leeyahay gabadha jazaak Allah khayr ilaahay subhanahu wa ta'ala ka warmariyo maarta canaanta noo jeedisay iyo talada siisay waa gartay aad baad u mahadsantahay cabdiqani aan koolkan kala qaadan السلام عليكم
soo dhawo walaalkay su-aashaa qabto سؤال in loo baahan yahay in la heshiisiyo horta badadka minnesota degan ee iswada dacweynaya iska horjeeda ee qaar waadada koonkana ku yihiin qaarna ay xagga waada ka soo jeedaan guud ahaan soomaaliya intaan la gaadhin dadka jooga minnesota in laisku dayo in la heshiisiyo maxaa بارك الله فيك جزاك الله خير ورنتي وأرين مهم جدا وياه وحال قفك اللي دونا يا إنه مارتي بدنا أنا كفكرته ماشي أجوكتنا وفي عنتها كنتي مقالة إنه ما أنت جوجنا أما قبل كإنه جوجنا ما أنت الصومال وبدنتها إلى لو قلت ما كنت كنا قفين دقيقين أما إلى اللي إحنا كنا قف دقيقين انت وضع موقته waxa moodaa inay iska soo horjeedaan ومع ذلك مدعودا أو تربطي إذا عدها قفكي ربا إنه مارتي أرين دلعي إسلامك إذا عدو تجيا وحيال نوع عس واحد دونا ولا يارو waxa uu istaagi kara oo arinka ka hortay kara ama heshiis keeni kara waxa weeyaan dadka community leaderska ah community leaders waxaan ka wadaa qof kasta oo dareemi kara mas'uul inuu ka saaran yahay dadka Soomaalida oo maanta meesha jooga ma ka hadlima ninka xafiiska sakriya ma nin kasta oo aqli leh oo garan kara inuu mas'uul yahay inuu meel intuu soo keeno dadka yaani ku heshiisiyo lagu islaaxiyo oo in hal meel ka wadoono waxa way wax la doonay weeyaan laakiin yaa u istaagay qof waliba saa sheegtay wuxuu leeyahay maxaa loo heshin waayay maxaa la soo heshin waayay marka insha Allah ta'ala kala tala fiican weeye waana jeclaan lahayd arinka ku bilaabi lahayd ama maartay nolol iman lahayd gacmo kugu sin lahayd insha Allah ta'ala waa gartay Cabdiqani intaan koolka kala qaadan hadda waan uga jaamacada waa dhigataa sidaad ogtahay dadkan wasranka reer galbeedka lagu yiraahdo waxay kala saareen diintii iyo maamulka way kala saareen markii ay kala saarayeen miyay ogaayeen baad leedahay in dhibkan oo kala dhacays markii wadaadadu la soo galaan faraha siyaasadda ما waxa moodaa diinta markay kala saarayaan iyagu iyo kala saareen iyo dawladda waxa ahayd ka tagid ay ka tagayeen diintooda weeyaan laakiin inaga diinteena islaamku waxayna baraysaa diinta iyada siyaasadii ah iyada maamulkii ah iyadiba hadda mesela hadaan ku leeyahay waxa siyaasadda loo yaqaano albaqara marka furto page u horeeya waxa ku qoran habka yahuud loo dhaqmayo waana siyaasad weeyaan quraanka yahuudi buu ka hadlayaa nasaaradii buu ka hadlayaa dadkii gaalada buu ka hadlayaa habka loo dhaqmayo buu ka hadlayaa hadii dawladda islaam ah dhisto oo leedahay ay wadanka degan si loo dhaqmi lahaa buu ka hadlaya marka islaamku ama kitaabku waa constitution dhameystiran aan laga saari karin xayaatada ama nolosha qofka mu'minka weeyaan laakiin gaaladu waxay uga duwan yihiin iyagu diintii bay ka tageen marka diintii ka tageen ayay waxay raacaan diinta oo farahan ka qaadno wax samaysan laakiin waxaan qabaa mid aan ku keeno koolka insha Allah arka laakiin waxa oran lahaa dawladda Mareykanka maanta aan joogno constitution-keeda waxa lagu dajiyay kitaab quraan ah waxa uu garan karaa kitaabkii lagu dhaaranayay Ellison lagu dhaaranayay xilligii constitution-ka Mareykanka la sameeyay ayaa waxa laga soo gaday urdu mooman ahayd baa laga soo galay $30,000 baa laga soo baxshay waxaan u dhigantaa lacagta maanta ilaa 3 milyan u dhigantaa waxaan loo soo gaday waxay ahayd in laga daawado sharciga dejinayo marka runtii quraankan waxa laga qorayba constitution Mareykanka laga qoray marka laba kala saari karo xayaatada nolosheena iyo quraanka laba kala saari karo laakiin ma la raadiyay inay xabad ku gaareen iyagu ilaa culimadii hadda waxay leeyihiin xukunkii baanu gaareen xukunkiina xabad bay doonayeen ku gaareen waxyaalaha runtii aan karo yani waxyaalaha akhdaada ah bay kamid tahay runtii qofku inuu sameeyay المسارح والمفاسد مفاسد waxa la yiraahdo waxyaalaha dhibta ka iimaanayso iyo waxyaalaha wanaag ka iimaanayo hadii qofka uu miisaami waayo waxa laga yaabaa qofku inuu hadii goor mafsado uma taqaana oo siir ku dhaxdaco ka bacdi soo maslaxa ku raadinaya arrinkaas marka inagu ceeb leenahay way khada inagu leenahay laakiin diintu waxaas bari ka tahay diinta quraan ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii la raaci lahaa oo qof waliba uu raaci lahaa wax khaldami lahaa ma jiraan ma qabaan waan ku taala ka bacdi aan ka faa'iideysan intuu secretary si jeedo aan su'aashan kale kugu xaday anoo ogina daa yartahay Soomaaliya goorma isleedahay culimadii markii ugu horeysay qori qaadeen goorma ahayd basleedahay waxa oran kara Sayyid Maxamed Abdul Xasan buu ahaa Sayyid Maxamed Abdul Xasan buu ahaa mootay culimo buu ahaa marka duulaan buu qaaday insha Allah waa gartaan kolkan qaad Assalamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal waa mahadsantihiin waan salaam ya sheekh Cabdiqani iyo waa gartaa walaal ku soo dhaw barnaamij walaal su'aashan qabo waxa weeye maxaan ku ilaahaa horta wadaad maanta lama dhihi karo Soomaaliya ka dhacaya sababta wadaad waxa la rabaa wadaad sheegay inuu reerkiisa soo bilaabo oo meesha soo bilaabo dadka maanta Soomaaliya dhibaya ama maxaa dhibaatada ummadda u bilaabayeen waxa waaye gobolada Soomaaliya dhan ayay isaga wadaynayeen waa gar markaas inta caasimad yimaadeen dagaal iyo ummadii barakiyeen marka wadaad ma dhihi karno waa dadka gahdar deesteeno maxaan kula America yimaadeen America inaan loo salaam alaykum aad baad maasanta جزاك الله خير لكن انت انا كولka qaadin walaashin una saxan la runtii wana saxan oo jeeso weeyaan جزاك الله خير laakiin badana waxa oran la garka aad xogaa tilmaamaysa waxa laga yaabaa qofku iyo diinta la kala saaro fiican markan tilmaamay